بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. دawadayaal meel walba aad joogtaan kusoo dhawaada kanaalkeena nuxnuxul. maanta waa maalinkii ugu horreysay ee aan soo bandhigino ama soo gudbinayno podcastigeenna inta badan wuxuu ku saabsanaan doonaa waxyaalaha mataqaana technology-ga la xiriira. maanta runtii mowduuca aan wadno waa mowduuc iska hordhaca sidoo kalena aad u qiimo badan yacni waxtar badan naftayda iyo naftiinaba u leh. waxaan rajaynayaa inaad ka faa'iidi doontaan. kolka hore haddaad mataqaanaa meel degan oo waxa weeye nacawle oo mataqaanaa aan buuq lahayn aad fadhidid, waxaan jeclaan lahaa inaad koob shaah inta soo qaadatid salka dhulka ii dhigtid labadaada dhagood isiisid, sababta waxyaalahan kula wadaagi doono waxay noqon doonaan kuwa laga yaabo inay noloshaada iyo weliba mustaqbalkaagaba wax weyn ku soo biiriyaan. podcastigeenna maanta wuxuu ku saabsan yahay wax loo yaqaano social media. dhammaanteen san Soomaali u nahay waynu isticmaalnaa social media ama baraha bulshada. waxaa laga yaabaa qof walba in ka mid ah inuu leeyahay wax ka badan hal yacni account inuu ku leeyahay baraha bulshada. ujeedooyinkan u isticmaalno runtii aad ayay u kala duwan yihiin. dad in ka mid ah waxay u isticmaalaan inay xog ku soo gudbiyaan sida kanaalkan aad hadda daawanayso oo kale. dad in ka mid ah waxay ku isticmaalaan inay wax way ganacsigooda iyo mataqaanaa waxyaalo adiga ay sida lacag loo sameeyo waxyaalo noocaas oo kale inay u adeegsadaan. dad in ka mid ah waxa laga yaabaa inay warkii kala socdaan oo ay u yihiin il ay xogaha kala socdaan. dad in ka mid ah waxa laga yaabaa inay iska yihiin dad iska isticmaala war dadkuba waa isticmaalaa anigana maxaa ii diidayay inaan isticmaalo inay u soo galeen. ujeedooyinka loo isticmaalo aad ayay u kala duwan yihiin. aqoonta loo leeyahay aad ayay u kala duwan tahay. nin walba wuxuu ka isticmaalaa intuu garanayo. maanta waxaan la wadaagayaa rules ama shuruuc. meel walba dunida aad tagtid wax walba aad samaynaysid waxa leeyihiin shuruucdana ogow inta badan waa nidaam aan la isku waafaqay. ma ahan wax mataqaanaa xag ilaahay ka soo tagay. waa jiraan shuruucda ilaahay xaggiis ka soo tagay oo dunidu qaabkay u shaqeynayso iyo dadku say u noolaan lahayn iyo wax walba yacni ka hadlaya waxay ka tagtay aysa jirin. laakiinse marka laga hadlayo dee baraha bulshada oo waxaan mataqaanaa anagu isticmaalana shuruuc waxaan degsananaa ku salaysan wixii mataqaanaa aan naqaanay hore u naqaanay oo ilaahayna baray subxaana watacaala. shuruucdan isticmaalana inta badan waxay ku xiran yihiin wax dadka laga arko. marka shuruucdu ma ahan wax iska yara adag maanta, laakiinse inta aanan shuruucda u horgelin waxaan rabaa inaan ka bixiyo wax loo yaqaano tusaale inaan shuruucdii baraha bulshada ku shaqaynaysay ama qaabkii loo isticmaalayay sheegaysay oo dadka hagaysay inaan barbar dhigno sidii inaad tahay adiga yacni adiga waxaad isticmaashaa baraha bulshada, aniga waxaan isticmaalaa baraha bulshada. waxaa jira shuruuc labadeenaba na hagaysa walow ay ku kala duwanahay xaddiga oo mid walba shuruucdaas laga rabo inuu ka soo baxo, sababta qof walba baahidiisa ay ku xirantay. marka waxaan ka soo qaadanaa kulligeen inaan nahay darawallo yacni dad gaari wada, waxaana ku soconaa wadda highway ah. waddadaas shuruucda laga rabo waxaa ka mid ah inaadan ku dhex istaagi karin, waddada iska dhex istaagi karin. sidoo kale shuruucda laga rabo waxaa ka mid ah inaadan speedkii limit speed baa jira waddo walba la marayo. waxaa jira speed aadan ka sar mari karin ama ka hoos mari karin. waxaa rabaa speedkaas inaad mataqaanaa range baa lagu siinayaa ama in la rabo inaadan ka hoos marin kana sar marin. marka waddadaas sidaa doontid iskagama socon karid. waddadaas meeshaa doontid kama leexan karid. meel loo dhisan gareeyay baa jirta oo loogu talagalay in laga leexdo. mataqaanaa waxaa doontid yacni waddadaas kama samayn karid. marka darawalkaasaad waxaad ka tahay akoonadaada, anigana darawalkaasaan waxaan ka ahay akoonadayda. waxaan rabnaa inaan ilaashano xogteena. sidoo kale waxaan rabnaa inaan mataqaanaa kambaniyadii aan kambani walba oo aad isticmaalaysid akoonkiisa waxaad la saxiixatay heshiis. waxaan rabnaa sidoo kale inaan noqono dad ka soo bixi kara heshiiskaas haddii dan noogu jirto. haddayse dan noogu jirinna isticmaalkiisuba inaan iska daynaa yacni ayaa habboon.
marka kasoo qaad inaad mataqaanaa tahay darawalkaas highwaygaas maraya ay jiraan shuruuc ku hagaya oo lagaa raba inaad mataqaanaa naftaada iyo dadka kaleba waxweeye ku ilaalisid la rabo sidoo kale inaad mataqaanaa raacdid xaraf u raacdid oo aadan ka leexan haddaad ka leexatidna ay dhib adiga kusoo gaaraysa ama dadka kale dhib soo gaaraysa hadhowna mas-uuliyadeedu ay adiga ku fuuliso midda koowaad sharciga koowaad ama shuruucda lagaa rabo ee ugu muhiimsan ee kolka koowaad la rabo inaad mataqaanaa diiradda saartid oo waxaweeye aad si fiican oo dhow uga warqabtid waxaa ka mid wax loo yaqaano personal information mataqaanaa xogtaada shakhsiyanka ah magacaaga yacni passport numberkaaga ama SSN wax loo yaqaano social security numberka wuxuu la mid yahay gaarigaaga oo kale personal informationka sidaa u ilaalin lahayd waxay la mid tahay gaarigaaga oo kale gaarigaaga markaad gurigaaga imaatid waxaad ku xidhaa log si aad uga hortagtid in laga xado marka akoonnadaadana waxaa la rabaa inaad log ku xidhid log waa kala duwanaan karaa siyaabo kala duwan buu noqon karaa yacni qaabab kala duwan buu noqon karaa laakiinse adiga waxaa muhiim ah kabani walba wuxuu leeyahay qaab ama si loogu xirto log akoonkaaga inaad mataqaanaa kambanigaas shuruucda kuu soo dejiyey ee akoonkaaga u ilaashan kadhid ee xogtaada aad u ilaashan kadhid aad raacdid sababta oo wax adiga marka koowaad ku anfacay marka labaadna kambaniga anfacay marka saddexaadna dadweynaha anfacay marka waxa weeye qof walba wanaag baa ugu jira inaad xogtaada ilaashatid dad waxaa jira doonaya inay helaan laakiin sidoo kale waxaa jira dad ka xumaanaya inay xogtaadu dibadda u baxdo marka koowaad kasoo qaad xogtaadu inay tahay gaarigaaga oo kale waxa kuugu jira iyo mataqaanaa gaarigaaga oo kale wax walba oo gaarigaaga ku jira iyo gaarigaagaba si aad u ilaashatid waxaa u baahan tahay inaad isticmaashid mataqaanaa logs marka loogagu waxa weeye waxay ka ilaalinayaan in xogtaada loo dhaco oo laga xado sidoo kale waxaad isticmaalaysaa markaad baraha bulshada isticmaalaysid wax loo yaqaano strong passwords baaswooro adag macnaha baaswoor adag waxaa laga waraa waxaan la qiyaasi karin baaswoor markaad samaysanaysid ha ka dhigan magacaaga magaca hooyada magaca aabaha gurigiina mataqaanaa wax caan ah walaalaha ama dadka kula dhashay waxaa jira dad ku yaqaana oo doonaya akoonnadaada inay usoo dhacaan oo doonaya xogtaada inay helaan oo doonaya inay mar si u helaan wax mataqaanaa adiga dhib ku gaarsiin kara marka haddaad isticmaasho ka waran wax u sahlaya inay dadkaasi waxaweye akoonkaaga access u yeeshaan dee waxaweye adaa qayb ka ah dhibta kusoo gaartay waxaa laga yaabaa inaa ogeyn laakiinse qayb baad ka tahay ha ka dhigan baswaradaada wax dadku kula yaqaanaan waa inaad ka fikirtaa mataqaana wax loo yaqaana think outside the box baa dhigada waxaad ka fikirtaa يعني waxa la isla yaqaano wax ka duwan oo ka baxsan ka fikir dadku meel aysan qiyaasi karin oo aan marnaba qalbigooda ku soo dhici karin ayaa password laga dhigtaa soo kale passwordka isticmaalkiisa ha noqdo mid adag inta badan kambaniyadu waxa ay soo yani waxay ku sheegayaan levelka ama heerka passwordka aad isticmaalaysid uu adag yahay waxaan laga wadaa yani in passwordkan la jabsan karo iyo in kale yani waxa jira dadku ma isticmaalaan xataa qiyaas ma isticmaalaan brute force wax la yiraahdo ayay isticmaalaan brute force macnaha waxay isticmaalaan wax loo yaqaano word list oo mataqaana waxay soo qoranayaan passwordada ugu badan ee commonka ee dadku isticmaalaan kadibna documenti bay ku soo aruurinayaan kadibna program ayay waxay sameynayaan kadibna waxay ku sameynayaan in akoonkaaga ay passwordadaas ku dayaan si automatic ah ayagu macnaha xabad u gelin mayaan marka waxay isticmaalayaan code bay qorayaan waxay automate gareynayaan qaabkii adoo gelayo kale automate gareynayaan macnaha qof gelayo oo kale marka hadba waxay isku dayayaan password cusub waana passwordada la iska yaqaanay marka hadda wax la isla yaqaanay ama wax jilicsan ka dhigatid aad bay u fududahay maanta in la jabsado marka waana shay aad ugu muhiima waliba gabdhaheena mataqaanaa Soomaaliyeed dee ayaga ugu cadow badan waa u fudud yihiin mataqaanaa cadowga aad bay ugu fudud yihiin sidoo kale dhibta soo gaaraysa aad ayay u badantay walow Soomaalida aad moodid hadii mataqaanaa nin wax soo gaaraan iyo haday gabar wax soo gaaraan in mataqaanaa aysan isku meel u oolin waana arin sax oo mataqaanaa isku meel lama dhigi karayo waa laba qof oo wax weeye u kala nugul dhibta gabadha waxay ahayd waa shay aad u qiimo badan marka shayga aad u qiimaha badan inta badan waa la ilaaliyaa wiilku asagooba ma qiimo yara oo ma qiimo mataqaanaa nin qiimo yar maaha waa ninkii laga rabay gabadhaas qiimaha badan inuu ilaashado marka waa sayidkii marka
kasoo qaad mataqaanaa baaswarada strongiga isticmaalasid inay la mid yihiin security system. tusaale ahaan oo kale haddii gaarigaaga uu isku dayo qof inuu mataqaanaa muraayada kasoo galo oo kale, kasoo qaad in mataqaanaa gaarigaaga markii la taabtaba uu qaylanayo way inuu dhahayo tan waxay ku sahlaysaa inuu mataqaanaa qofkiina sasba ku dhacaya, adigiina kusoo ogeysiinaya. waxaadna ogaanaysaa in la isku dayay mataqaanaa gaarigaaga in la jabsado. marka qofkiina u suurtageli mayso, adigiina waa ogtahay waxaas inay dhaceen oo la isku soo dayay. sidoo kale waxa weeye qofkaas mar dambe gaarigaaga kusoo dhiiran mayo. marka sidoo kale waxaa jira qodobka saddexaad inaad samaysid wax loo yaqaano authentication, 2-factor authentication iyo 3-factor authentication wax la yiraahdo ayaa jira. authenticationka waxaa laga wadaa in la hubiyo qofka akoonkan soo galaya ma yahay kii saxda ah ee lahaa. qaababka lagu hubiyo waxaa kamid ah in qofka la weydiiyo wax uu yaqaano, sidoo kale mataqaanaa tusaale ahaan kale sida passwordkiisa oo kale waxa lagu leeyahay furasireedkaaga geli baa lagu leeyahay. qofkan waa wuxuu yaqaano wax uu yahay, sida tusaale kale haddii app ah isticmaalisid inaad fingerprint aad ka qaadid, marka waa waxaad tahay. ama tusaale ahaan kale ID-gaaga oo kale, ID-gaaga oo kale sidoo kale waa waxyaalo lagu xaqiijin karo. marka 2-factor authentication iyo 3-factor authentication iyo mataqaanaa iyo single authentication waa jiraan, saddexdaas way jiraan. marka authenticationka macnaheedu waxa weeye inaad mataqaanaa aad la hubinayo war cidda gaariga soo galaysa ma tahay ciddii lahayd. qodobka afraad waxa weeye waxyaalaha aad soo dhigisay baraha bulshada. baraha bulshada waxaan u isticmaalnaa siyaabo kala duwan. qof walba wuxuu leeyahay ujeed gooni ah. qof ma jiro, waxaa jira dad iska soo gala, dad iska soo gala waa jiraan, waan ujeed iyo meel ay u socdaan iyo waxay ka doonayaan aan lahayn. laakiin dadkaas ka hadli mayno, waxaan ka hadlanaa dadka ujeedka kale ee doonaya ama inay xog ka faa'iidaan ama xog ay la soo wadaagaan. waxyaalaha aad soo dhigaysid waxa weeye ama ha noqdeen waxyaalaha aad mataqaanaa saxaabtaada iskala wadaagaysid, ama ha noqdeen waxyaalaha aad mataqaanaa bulshaweynta dunida oo dhanba la wadaagaysid. ka fakar inta aadan soo bandhigin, ka fakar inta aadan soo post garayn. sababta waxaa laga yaabaa wax aad soo post garaysay oo aad iska lahayd waa iska caadi in mataqaanaa noloshaada uu dhanka kale u rogo, mataqaanaa baaba iyo mushkilad uu ku horsado. marka sida gaariga markaad waxa weeye subaxii aad kaxaynaysid waxaad eegaysaa meel walba, tijaabo macnaa scan baa marinaysaa. marka boostiyadaada inta aadan post oran oo aadan ku dhufan buttonkaas waxaad samaysaa ka fakar ma yihiin waxaan wax aakhiradaada saameyn ku yeelanaya, wax adduunkaaga saameyn ku yeelanaya, wax sharaftaada iyo karaamadaada hoos u dhigaya, ma yihiin waxaan wax dan ku ah. yacni waxaad ka fikirtaa 150 su'aalood. waxaa inta badan la isticmaalaa dadku waxaa u fiican in isticmaalaan waxyaalo loo yaqaano diintaada. haddaad raacdid dhib kuma soo gaarayso. haddaad diintaada raacday waxay ku amartay dhib kuma soo gaarayso. laakiin diintaada goorma raaci ka dhaa markaad garanaysid diintaada. marka dadka inta badan waxyaalaha soo dhigaya mataqaanaa aan wanaagsanayn waa dad aan diintooda waxa ay ka tiri garanayn, ama waxa weeye markaas yacni shaydaanku ka qaalib noqday. marka dee qof walba waxa weeye xumaan wuu leeyahay, laakiin waxyaalaha dadka la wadaagaysa runtii kaligaa saameyn kuguma leh. bulsho weyn Soomaaliyeed ama dunida oo dhan ayay saameyn ku yeelanayaan. qodobka afraad la rabo inaad mataqaanaa aad rulka ah oo la rabo inaad raacdo waxaa kamid ah inaad mataqaanaa noqotid qof xushmad leh oo dadka kala xushmeeya, oo waxa weeye ixtiraama, oo baraha bulshada adaab iyo akhlaaq ku jooga. inta badanna waxay ka turjumaysaa baraha bulshada markaad joogtid sidii lagu soo barbaariyay. haddii lagu soo barbaariyay oo hooyada iyo waalidka iyo aabaha iyo mataqaanaa gurigiina aad ku ahayd dee qof xun, hooyada caayi jidhay, aabaha caayi jidhay, walaalaha caayi jidhay, mataqaanaa meel walba cay gurigiina mataqaanaa dee meel walba aad cay soo dhigi jirtay, dee baraha bulshadana lagaa sugumayo barada inaad qof wanaagsan noqotid. laakiin haddaa qof wanaagsan ahayd gurigiinii u malayn maya inaad baraha bulshada inta imaatid aad xumaan la soo galisid. waa laga yaabaa dad kale inay ku saameeyaan, laakiin sidaa gurigiina u joogtay oo kale walaasha hadalka lagu yiraahdo aad jeclayd, yacni aad ku dhihi lahayd, yacni maanta baraha bulshada kasoo qaad walaasha inay isticmaasho hadalkii lagu dhihi lahaa ee aad jeclaan lahayd in lagu dhaho oo kala adeegso.
hadalkii aad nabcaan lahayd in lagu dhaho ka fogow. macnaha ruulka waxaad ku ablay garaysaa naftaada, walaalaha, ehelkaaga. marka haddii laakiinse qofku gurigoodii uu ku xumaa oo ehelkoodii uu ku xumaa oo markii horeba uu qof xumo ahaa, baraha bulshada markuu imaadayna fursad wuxuu u helay uu magaciisii iyo muuqaalkiisiiba qarin karo, xumaantii laba jibaarkeedna uu samayn karo. laakiinse dee shakhsiyad bay ka turjumaysaa. dadka Soomaaliyeed waa ku arkay boqolaal qof oo waxa weeye ama diintii wax ka sheegaysa ama waxa weeye wiil ama gabar mataqaana baraha bulshada iska isticmaalayso oo aan dhib iyo xumaan midna u geysan, oo qof iska wanaagsan xumaan u soo qoraya, caayaya, nacaybka ku jira mataqaana wax meelay kala qaadeen xataa aadan fahmi karin. marka haddii adigu hadda aad tahay qof inta baraha bulshada soo gala oo dad commentida u soo gala, comment ku dhigle hadda comment ku dhigla tahay, fiiri dadku magacay u bixinayaan, fiiri waxay ku leeyihiin comment ku dhigle. waxay ka dhigayaan wixii wax dadku inay ku dhiiradaan ay tahay, yani waxay ka dhigayaan wax caadi oo in la sameeyo ay tahay. waana runtii qaabka ay u bedelaan waxyaalaha aan u aragno xumaan. marka hore waxaa laga yaabaa dhalinyartu inay baraha bulshada soo galaan ayagoo dad wanaagsan ah, laakiin maanta oo dhan say u arkayaan qof mataqaana wuxuu soo qoraya ama ay soo qoraya mataqaana magac fiican loo bixinayo oo mataqaana la leeyahay la amaanayo, wuxuu is leeyahay maxaa anigana la amaana waaye, maxaa anigana saa u sameyn waaye. marka Soomaaliyeed problemka ina haysta ee mataqaana aydan ka walwalasaan qayb idinka ka ah, wallahi runtii qayb idinka ka ah. marka haddaad rabtaan dadka waxa weeye inaysan mar dambe ay soo qorin, ha u jawaabinina, jawaab horta ka bixinina. sidoo kale like ha u saaranina, mataqaana hadduu wax soo dhigo maanta haddaan aniga hadda 3 comment soo dhigo oo 3 comment ba la ignore gareeyo, ana dhahayo ruuxani wax khaldan baad samaynaysaa ma isleeyahay ugu yaraan macna haddaan si fiican u fikiro. haddii kalena waxa laga yaabaa inaan qof iska wanaagsan noqdo mataqaana marka waa daalaya moogta. laakiin haddaan like helayo maanta dhan boqolaal qof like ii soo saarayso, runtii waxa weeye way fududaanaysaa inaan 10 la mid ah posts-ka aan sameeyay ama comments-ka aan sameeyay aan soo bandhigo. marka noqdo dad xushmad leh oo dadka kala ka xishooda oo ixtiraama oo ula dhaqma dadka kale sidii aad jeclaan lahayd in adigana lagula dhaqmo. xataa dad waxaa jira aan naftooda ixtiraamin moogta. haddaad naftaada ixtiraamin dee qof kale ixtiraamaysa. marka qodobkaas waa qodobka kale waxa kamid ah xogagta aad dadka la wadaagaysid. tusaale ahaan kale haddii anagoo kale dadka mataqaana baraha bulshada wax kusoo gudbiya, waxaa la rabaa xogta aan dadka la wadaagana Soomaaliyeed inaan double check garayno. marka fact check wax la yaqaan inaan ku sameeyno oo xogtaas aan hubino ma tahay wax xaqiiqa, ma tahay wax dadkii wax tar u leh, wanaag u leh. sababta xog waxaa jira xaqiiqa laakiin aan wax tar inay lahayn, waxani ma yihiin wax mataqaana wanaag inay ah. marka taasna waxay la mid tahay gaarigii haddaan dib ugu noqono adoo isticmaalaya waxa weeye GPS ka ama waxa weeye wadankii wadooyinka isticmaalaysa wadan walba wadankeena waxay tagtaa meel bay tagtaa. marka hadda wadan khaldan aad isticmaashid يعني laga sukumay inaad meeshii saxda ahayd ee aad rabtay inaad tagtid. marka waa tabtaas oo kale hadii xog mataqaana khaldan aan soo gudbino dadka ka sugumayno, waliba dadka waxa way anaga wax soo gudbiye dadka kale ka sugumayno inay mataqaana xogti dhabta ahayd ee wanaaga ahayd ay helaan. anagoo mataqaana xumaan soo gudbinayna dadka ka sugno inay mataqaana ay wanaag helaan. marka waxa way xogta aad soo gudbinaysa in way waxa way xaqiiqi oo aad ugu noqnoqo oo ka fakar oo mataqaana inta aadan la wadaagin dadka. qodobka kale waxa kamid ah inaad mataqaana waxa la yiraahdo waxa social media bulshada ka hadlanay waxa jira loo yaqaan footprint-iga waxa weeye waa raadkaagi laakiin soo wata shakhsiyadaadii, waxyaalihii lagu garanay, waxyaalihii lagu yaqaanay, raad laga soo daba mari karo mataqaana inta la soo qaado lagu iman karo meesha aad joogtid, raad la og yahay meesha tagtay iyo meesha waxaad samaysay, raad la ogaan karo dhaqdhaqaaq walba oo talaabo walba aad qaaday. marka raadka ay ka tagisid si fiican uga fakar, ma yahay mid wanaagsan ma yahay mid xun. macnaha horeyna waa u soo sheegnay waxaan wax walba waxaad ku miisaantaa diintaada, laakiin haddii mataqaana marka koowaad waxa laga rabaa inaad diintaada taqaanid. marka kow samee wax walba waxaad ku samaysaa war waxani ma yihiin bari haddaan dhinto ka soo qaad, maanta haddaan dhinto
waxaanay aakhiradayda xumaan miyay u yihiin mise wanaag bay u yihiin, beri may anfacayaan mise ima anfacayaan. waa su-aal iska simple ah. haddii isku anfacayn mataqaanaa ha samayn, talabada ha qaadin, ka digtoonow. marka waxa weeye taas waxaana la mida environmentiga aad ku nooshahay. haddii gaari aa wadatid ka war, haddaad aadid ka waran meel dhul dudumaya oo kale haddaa gaarigaaga ku wadid, dee waa la hubaa inaad mataqaanaa dhulkaa dumaya aad raacis, adigii gaarigaagii wax walboo saaran aad tagaysaan. marka haddii wax xumaana aad soo gashid, ogow waa wax beri raad kugu yeelanaya oo mataqaanaa saameyn ku yeelanaya aakhiradaada iyo adduunkaaga iyo mustaqbalkaaga iyo sharaftaada iyo karaamadaada. waxyaalaha ugu fiican ee ugu qiimaha badan ee la ilaaliyana waxaa ka mid ah qofka sharaftiisa iyo karaamadiisa. kambaniyada social media waxay leeyihiin wax loo yaqaano privacy. kambani walba wuxuu leeyahay privacy u gooni ah. privacyga inta badan waa wax ayaga marka koowaad wax taraya, marka labaad waxa weeye mataqaanaa baraha bulshadooda qaabka loo isticmaala sheegaya. marka qofka koowaad ee ay wax tarayaan privacygu waa iyaga, ma aha adiga. haddaa saa u fakeraysa, horay u fakeraysa in privacyga adiga uu yahay this is my privacy aad ku haysay, tan waa ku khaldanad. yacni privacy haddaa maqashay macnaheed waxa weeye cidda koowaad ee ku faa'iidaysa waa kambaniga. sababta aniga maanta haddaan raba inaan kambani samaysto, waxa koowaad ee aan ka fakeray waxa weeye war waxa aan dejinayo, shuruucdan aan dejinayo ee dadku raaci doonaan, seebay marka koowaad aniga ii anfacaysa. waa fakerka ugu horeeya ee mataqaanaa la rabo qofku inuu ka fakaro, mataqaanaa niyadda ku hayo. waana wax runtii waxa weeye qof walba qaabka u fakeri lahaa. marka kambaniyada ogow waxa koowaad ay ka fakerayaan waxa weeye waa naftooda. marka gaari oo kale haddaa wadamadaas mataqaanaa qurbaha aad joogtid, waxaa laga isticmaala waxa loo yaqaano ama wadankii oo kale meel walba waa laga isticmaala, waa gaarigaaga oo kale inaad dayactirtid. dayactirka qofkan ku dayactiraya marka koowaad wuxuu ka fakerayaa dee lacagta kasoo galaysa. hadduu waxa uu ku dayactiraya aad ku bixisid lacag aad u tiro badan, macnaheedu waxa weeye wax badan buu ku dayactiraya. haddaad mataqaanaa dee lacag yar ku siisid, sidii la rabay uma dayactirayo. marka mar walba waxay ku xiran tahay qofkan waxaad siisay siduu ku qanacsan yahay. marka kambaniyadan waa tabtaas oo kale, haddii mataqaanaa ay ka arkaan oo kale dhaqdhaqaaq aysan jeclaysan, akoonkaaga xirayaan ama waxa weeye xogtaada ayay waxa weeye isticmaalayaan, say rabaan bay isticmaalayaan. waxay doonaan bayna samayn karaan, sababta heshiiskan adaa saxiixay oo gacantaada ku saxiixay, adaa gacantaada isku dilay. qodobka kale waxaa ka mid ah inaa waxyaalaha ugu muhiimsan ka mid ah weliba bulshadeena Soomaaliyeed anfacaya screen time. wax loo yaqaano limit screen time. waqtiga aad ku isticmaalaysid baraha bulshada ee baraha bulshada ku bixinaysid u samee waqti go'an. saanahan kale TikTok oo kale aad isticmaashid, TikTok hal ahaato waqti aad soo gashid iyo waqti aad ka baxdid iyo muddo aad ku jirtid. muddada aad ku jirtid waxa loo yaqaanaa screen time baa loo yaqaanaa. ayada xataa TikTok waxay ku siinaysaa waqtigii aad isticmaashay, si asbuuclaa bay ku siinaysaa. taleefankaaga wuu ku siinayaa si asbuuclaa buu ku siinayaa. waxaad ogaanaysaa taleefankaaga wuxuu ku sheegayaa war qofkani ma aha qof productive asbuuci la soo dhaafay mise ma ahayn. taleefankaaga ku sheegay. laakiin sidii qofka yaa wax maqlaya, udunan waaciya, dhagtii rabta inay waantoodo ayaa waana qaadanaysa. qofkii raba inuu mataqaanaa dee waqtigiisa ka faa'iideysto ayaa waqtigiisa diiradda saaraya meeshuu ku isticmaalaya iyo wuxuu ku isticmaalaya iyo waxyaaluhu xataa isticmaalaya ama ku adeegsanayo waxa ka soo galaya. marka haddii ka soo qad aad tahay dadkan tracklayaasha ah, gaariyaashii baa mataqaanaa tusaalahan ku apply gareynayna, dadkan tracklayaasha oo kale haddaad tahay waxaa jira wadooyin dheer ayay galaan. marka caafimaadkooda uma wanaagsana, sidoo kalena qof bini aadana weeye waa daalayaa, haway u baahan yihiin, nasashay u baahan yihiin. maanta oo dhan gaari bay wadeen, mataqaanaa kulayl bay ku jireen, marka waxay u baahan yihiin break. marka screen time wuxuu la mid yahay adoo gaari trackla ahaa oo wada 20 saac maanta soo qaaday, 10 saac soo go'ay oo raba hadda hal saac inaad nisatid ama seexatid ama waxa way iskala bixisid. runtiina dadka tracklayaasha haddii ay dhageysanayaan waxaan kula talin lahaa gaariga mataqaanaa markaad xoogaa socotid ba isku day inaad inta istaagtid aad waxa weeye raggan ka hadlaya macnaa aad mataqaanaa dhiigaaga inaad jirkaaga dhiigga isgaarsiisid. sababtoo ah inta badan waxa weeye xubnaha taranka waa muhiim weeye inay mataqaanaa dhiig badan helaano.
marka haddii fadhi badan aad ninku uu sameeyo dee wax badan oo khasaara baa kasoo gaaray. dee qof walbana waxaa aaminsanahay inuu garanayo dee utragla dadku ayaga kaga aqoon badan shaqadooda. qodobka lagaa rabo ee kale ee sharciga la rabo inaad mataqaanaa raaciyo waxaa ka mid ah inaad break ka qaadato. break good way waa social media oo kale. inaad mataqaanaa kale arday baa tahay ama qof shaqeeyaa tahay ama qof adigu mataqaanaa muhiimad badan ay sabraha bulshada ka jirin. isku day inaad mataqaanaa break ka qaado asbuucii oo kale 2 jeer soo gal ama 3 jeer soo gal ama wax way maalinkii 1 jeer soo gal. halka jeer 1 saac ku bixi ama 2 saac ku bixi. waqtigaagu ha koobnaado, sidoo kale waqtiga ay soo gashid ha ahaado 1 ama 2 jeer. laakiin waxa laga yaabaa inteena badan inaan soo galno 20 jeer 40 jeer inaan soo galno. maxaa la ii soo diray qofka comment miga bixiyay, kaan ma share gareeyay, kaas profile-kayga ma fiiriyay, waxa soo dhan ayaa maanta ku jirnaa. waxa mataqaanaa waana baraha bulshada qaab loo dhisan gareeyay weeye. waxaa loogu talagalay inaad soo noqnoqo. waa waxay rabaa inay mataqaanaa ka dhigaan qof cunaya oo aan mataqaanaa waxba ka faa'iidin. fast food ko kala mid fast food ko waxa la yiri dadka haday dadka qurbaha jooga garanay ama wadankiiba waa ka jiraan. hadaa cuntooyinka yararka ee mataqaanaa dibadda lagu karkariyay ee mataqaanaa macmacaanka iska oo aan waxba ku taray, hadaa maalin walba cuntid waxaad ku noqonaysaa addicted. markaa ku noqotidna maskaxdaada xataa waxay u sheegayaan, maskaxdaadu waxay siyaadinaysaa waxa loo yaqaan waxa jira dhicaano loogu talagalay in maskaxdaada ay limit gareeyaan ama xadidaan gaajada macnaa xilliga ku qabanaysa iyo gaajada mataqaanaa levelkeeda iyo waxyaalahaas mataqaanaa waxa jira dhicaano control ayaa jira. marka fast food ku waxyaalaha ay badiyaan waxa kamid ah waxa yareeyaan waxa kamid ah in qofkii dhicaanadii gaajada xadidayay oo mataqaanaa qofka dhahay war ma gaajaysin inay hoos u dhigaan, oo qofka dhicaanada gaajada amrayay ay sare u qaadaan, oo qofka mar walba uu gaajo mataqaanaa gaajo iska hayso oo rabo waxyaalihii inuu cuno mataqaanaa yaryara. marka waana wax shirkaduhu ay ugu talagaleen oo mataqaanaa waxay ku daraan chemicals loogu talagalay in qofka maskaxdiisa ama chemicalka maskaxdiisa ku jira ee Ilaahay ugu talagalay caafimaadkiisa uu ku jiro ay wax uga bedelaan. marka social media waa taas oo kale runtii mustaqbalka waa ogaan doontaayo. maxaa mustaqbalka maxay tahay maantadan depressionka iyo anxiety-ga ugu badan ee dunida ka jirta waxyaalaha sababta ka ah waxa kamid ah ama ugu badanba baraha bulshada. dadka baraha bulshada aadka u isticmaala ee addicted ku noqday waa dadka mataqaanaa noloshooda miserable way, waa jaxiimo way noloshooda cadaab soconaysa way. marka sidoo kale dadka aad la xiriirtid waa qodobka kale. dadka aad ku dirsatid saaxiibka la noqotid la sheekaysatid aad wax isla share garaysaan aad aamintid baraha bulshada aad isku barateen runtii ka digtoonow. qodobkan waa qodob aad u muhiim. Soomaalidu baraha bulshada waxay u qabtaan qof walba hebel walba oo kugu soo dirtay friend request kugu soo dirsada ama follow ku soo dhaayno saaxiibka yahay. waana arrin khaldan. ka digtoonaada yani dadka limit garee yani xadid dadka aad saaxiibka la tahay. sababta meeshan marftid 5,000 oo qof marftid uma baahnid. baraha bulshada waxay u dhisan gareeyeen inay adiga kugu soo xiraan inaad aabkan ka bixin maanta dhan. marka waxay ku sameynayaan xad aan ku suurtagelinayn inaad ka bixin. dad badan bay ku sameeyaan, asxaab badan bay ku sameeyaan aad u baahnaan. qofka caadiga ee normalka ee mataqaanaa bini'aadamka wuxuu u baahan yahay hal saaxiib oo qaali ah. hal saaxiib hadaa baraha bulshada ka leedahay maanta wada hadashaan asaga ku filan. maxaad 100 qof kala hadlaysaa? wiilasha mataqaanaa gabdhaha iska shukaansanay beenta u sheegayeen intay baraha bulshada soo galaan oo magacyo ku qortaan waxa weeye meel walba intay iska tagaan dee waxaas ma ahan wax rag lagu yaqaanay ma ahan wax inaan facayana ma ahan wax gabdhihii u wanaagsanna ma gabdhahana ka digtoonaada. marka baraha bulshada qofka kala hadlaysan qof ciidan caadi u aqoon hala wadaaganina wixiina mataqaanaa aad hadhow ka walwalaysaan ama aan idin wanaagsaneyn idinka mustaqbalkiin. marka qodobka kale waxa kamid ah haddii aad ku aragtay xog aadan jeclaysan baraha bulshada waliba Soomaalidana aad bay uga buuxdaa xog aan diinteena iyo dhaqankeena iyo ku wanaagsaneyn waxaad ku samayn kartaa report ayaad ku samayn kartaa. haddaan ku noqono wada yani gaariyaashii
ama dee waxaan ka hadlanay gaari baan tusaale ugu soo qaadanay soo maaha analogy-ga aan isticmaalanay gaari buu ahaa. marka gaariyaasha haddii wadada dee gaari aad aragtid wadadii aan wada lahayn oo wada isticmaalanay, haddaad ku aragtid gaari iska soo doona isaga soconaya, dee waxaa kuu habboon inaad mataqaanaa ka bixiso report, walow la ogyahay mataqaanaa wadamada casriga la ogyahay gaariga waxa uu sameeyey tallaabo walba uu qaaday la ogyahay. haddana waxa weye wadankii oo kale, wadankiina dee wax ka qabanaya adiga macnaha yani waa tusaale, wuxuu waa tusaale. haddii ay ku habboon tahay ee suurtagal tahay, waxaad ka bixin kadhaa mataqaanaa waxyaalaha aan dee bulshada u wanaagsaneyn report ayaad dhihi kartaa. Soomaalideena weliba baraha bulshadeena aad ayay uga buuxaan. dadka waxaa moodaa wax kalaba inaysan isticmaalin ama wax kala soo gelin. dad mataqaanaa gaalada xataa waa yaaban tahay mataqaanaa gaaladii dadka haddaad aad la hadasho mataqaanaa moogta qof Soomaaliya haddaan aniga hadda nin dhalinyaro ahay, haddaan qof kale isbarano oo wadan kale ka imaaday oon wada sheekaysano, waxyaalaha ugu horeeyay ee aan mataqaanaa rabo qofka inaan wax ka ogaado, markaan rabo qofkaas iyo dadkiisa iyo dhaqankiisa inaan wax ka ogaado, waxaan baarayaa baraha bulshada. laakiinse annaga markii Soomaali baraha bulshada lagu soo qoro, waxaadan jeclaysanba ku soo baxaya. waana wax sumcadeeni iyo mustaqbalkeenaba burburinaya. jiilka soo socdana way mataqaanaa way burburinayaan. haddeer wax waa laga qaban karaa, dowladda wax waa ka qaban kartaa, dhalinyarta iyo dadka mataqaanaa caqliga leh wax way ka qaban karaan. mataqaanaa waa wax aad u fudud in wax laga qabto, laakiinse yaa rabada yaa wax ka qabanaya, yaa doonaya in wax ka qabta. marka haddii aad aragto xog aad jeclaysan mataqaanaa warbixin ka bixi. sidoo kale haddaad annagoo kale hadda qodobkan aad anagu noo quseeya waxyaalaha aan soo gelinayna baraha bulshada, dadka macnaha wax soo geliya oo content creatorska waxaa la rabaa copyright-ka iyo intellectual property wax loo yaqaano waa in aad looga taxadara, oo dadka mataqaanaa waxa ay samaystaan iyo xogtooda in loo nabadgeliyo, oo qof wuxuu iska leeyahay inaan la iska isticmaalin ayadoo weliba idan la haysan. xataa YouTube-ka oo kale haddaan tusaale inay kugu soo qaato, xog aadan lahayn haddaad soo gelisid waxay ku siinayaan ujeedooyin aad u soo gelin karid, yacni waxay ku siinayaan options kuu ogolaanaya inaad xogtaas soo gelin karid. optionadaas wixii ka baxsan waxa weeye qofkaas xogtiisa waa ku xadgudubtay. qofkaas oo kale hadda tusaale kale qof Soomaaliya mataqaanaa Soomaalida wuxuu la wadaagaya xumaan aan laga aamusi karin, marka qofkaas waa la radinaya, xogtiisa waa la soo qaadanaya, waa la radinaya. akoonkaaga tagaysaa, waxaad ka bixinaysaa jawaab, YouTube-kuna waa kuu ogolyahay inaad saas oo kale samaysid. qofkaas ma ateegreynaysid, laakiinse bulshadaadii Soomaaliyeed iyo dhaqankaagii oo aad qayb ka tahay ayaad ilaashanaysaa. waana wax gebigeenba kulligeen noo wanaagsan. marka laakiinse dadka kale xogta ay leeyihiin inaad iska isticmaashay idan la-aan, akoonadaadan iska soo gashitid. Soomaalida aad bay ugu badan tahay sababta ma yaqaanaan waxaana inay yihiin qof xogtiis in la mataqaanaa loo nabadgeliyana ay tahay wax laga doonayo oo laga rabo qofkaas inuu sameeyo ayaguse. laakiin dad sharci qabta maaha Soomaalida mataqaanaa sharciga waxa moodaa aad baa uga soo horjeednaa, laakiinse ugu wadamada kale markay tagaan sharciga aad ayay ugu dhagan nugul yihiin. waana runtii arrin qariib ah. wadankeena markaan joogno wuxuu ku leeyahay ninku yaa mataqaanaa yaa i weydiin kara, yaa ila hadli kara, yaa saa i dhihi kara, yaa waa saxoo cidna kuma dhihi karayso. laakiinse sharcigii aan shalay isku waafaqnay baa wuxuu leeyahay anigana xaqaanaan leeyahay, adigana xaqaanaan leedahay. haddaad xaqan kasoo bixi weydid ciqaabtaanaan leedahay, haddaan xaqan kasoo bixi waayo ciqaabtaanaan leeyahay. mataqaanaa nin ka wanaagsan ma jiro, nin wax dheer ma jiro, gabar wax dheer ma jiro, nin ree hebel la yidhaahdo ree hebel mataqaanaa ka wanaagsan ma jiro. laakiinse waxaa jira dal la yidhaahdo Soomaaliya, waxaa jira dowlad la yidhaahdo Soomaaliya oo shuruucda aan kulligeen isku waafaqnay noo haysa. mataqaanaa waxay ku leeyihiin shalay waxaana nagu waafaqday, mataqaanaa waa heshiisaan horey u saxiixnayo mataqaanaa aanan rabin hadeerna inaan raacno shuruucdii aan degsanay anagu. laakiinse wadankeena dee si uu u dhismo waxyaalaha ugu qiimaha badan dadku samayn karaan waxa weye inay qayb ka noqdaan dhismaha. waxaa moodaa inteena badan Soomaaliyeed, dadkeena Soomaaliyeed inaan qayb ka nahay burburinta. marka nin sharcigii kasoo horjeedsanaya, nin sharcigii u isticmaalaya si khaldan, nin sharcigiiba aan aaminsanayn oo mataqaanaa halkan lasoo taagan sharciga oo dhanba waa baatil. yacni afkaarta waa lagu kala duwanaan karaayo mataqaanaa dadku way leeyihiin afkaartooda, waa u xor weeye inay dadku abbaaraan
waxa ay aaminsan yihiin cidna ma ku khasbi karo haddii aysan dhaqankeena iyo diinteena kasoo horjeesan oo aysan bulshada Soomaaliyeed oo dhan aysan ka hor imaan haddaa bulshada oo dhan ka hor imaatid waa lagaa badan yahay macnaha majority-ga mataqaana ku baa mataqaana ayaad raacaysaa laakiinse afkaartaada waa cabiri karaysaa weliba si qaab wanaagsan oo mataqaana ay ka muuqato professionalnimo inaa mataqaana qof yacni dee in qof yacni macquula aad tahay si macquul ah ayaad afkaartaada u cabiri kartaa adigoo isticmaalaya wadooyin wanaagsan marka qodobka ugu dambeeya aan kusoo gabagabeynaya waxaa ka mid ah baraha bulshada markaa isticmaalaysid akoonada tusaale kale Twitter iyo Facebook iyo YouTube iyo TikTok dadka Soomaaliyeed waliba dhalinta ah waxay ku isticmaalaan akoonada horta waxaan kala qaadanaa labo akoonada kuwana waa kuwa wax soo gudbiya oo raba in dadku ay soo helaan kuwana waa kuwa ayagu mataqaana shakhsiyan oo iska isticmaala haddii akoonkaaga uu shakhsiyan yahay waxaan ku dhihi lahaa akoonadaada meel platform walba aad isticmaashide waxaad ku kala qorataa magacyo kala duwan magacaaga oo kale haddaad doonto si kala mataqaana kala duwan ugu qoro tan waxay ka anfacaysaa in haddii akoonadaada mid ka mid ah ay dhibi soo gaarto inaysan kuwa kalena aysan soo gaarin marka akoonadaada waxaad ku kala qorataa magacyo kala duwan tan waxay u wanaagsan tahay adiga privacy-gaaga u wanaagsan tahay xataa kambaniyadu ma ogaanayaan inaad isla adigii tahay qofka akoonkan isticmaalaya kan isticmaalaya hadhowna haddii mataqaanaa dee daalac lagu raacdo lama soo helayo meel walba cag dhigtay lama soo helayo sababta akoonadaada waxaa kugu kala qoran magacyo kale magacyadaas aa isticmaalaysidna hadhow dadka ha ku dhibaatayn magaca waxaad u isticmaashaa in adiga uu wanaag kuu soo jeediyo wax walba aan kuu sheegaynana haddaad qaabka xun u adeegsatid waa adiga akhradaada gacan walba waxay goysay leedahay baa maqli jira yacni qof walba wuxuu geysto ama annaga ha naga maqlo ama cid kale ha ka maqlo isagaa mas-uulka ah yacni laakiinse dadka xogta soo gudbiya sida anigoo kale ama akoonada kale ee bulshada ee Soomaaliyeed ee xogta soo gudbiya ayaga waxa u wanaagsan inay hal magac ku soo qortaan sababta ujeedkooda koowaad waxa weeye in akoonadooda la soo helo marka qofku hadduu hal akoon soo helo inuu akoonada kalena ka soo heli karo baraha bulshada qaybaheeda kala duwan asagoo adeegsanaya hal magac marka tan waxay u wanaagsan tahay dee bulshada kuu imaanaysa ee kusoo raadinaysa ee xogtaada rabta inay hesho ayaad u fududaynaysaa waddadii ay kugu soo gaari lahayd waxaad adeegsanaysaa magac fudud oo aad u fudud in mataqaana dadku xasuustaan sidoo kalena aan waqti badan ka qaadanayn in la qorto haddaa magac laba waxa weeye konton xaraf aad ka dhigtay ka war yaa qoraya Soomaalida mataqaana ogowna mustaqbalka waa inaad ka sifi kartaa magacaaga waa inaad ka dhigtaa dhowr xaraf adiga akoontiga inta laga ogol yahay 6 xaraf oo kala tusaanka YouTube-ka wuxuu ogol yahay 6 xaraf miya ahayd mise 4 xaraf adiga 6 xaraf ka soo qaad akoonadaada waxaa ka wada dhigtaa 6 xaraf hal magac ka wada dhigo 6 xaraf ka dhigo qofku 6 xaraf aad ayay ugu fududahay inuu mataqaana uu ku qoro nuxnuxli aad bay u fududahay inaad nuxnuxli ku soo qorto akoonka aniga Facebook ma isticmaalo Twitter ma isticmaalo laakiin TikTok waa isticmaala marka TikTok waa iga soo heli karaa walow magacaygu hadda uusan igu qornayn laakiin akoonka hadda waa cusub yahay mataqaana haddaan bilownay waxaan isku daynaa inaan waxyaalo tag ku saabsan aan soo gudbino bulshadana waxaan leenahay hal xiraalaheena noo yaala akoonkayga noogu qoran waa ka dhitayso aqoon ka aqoola dhigaal inaan mataqaanaa inaan la soo wadaagno wixii waxtar leh marka muuqaalka intaas ku soo gabagabeynaya daawadayaal waa inuu ku dheereeyay laakiin runtii waxaan aaminsanahay in muuqaalkan ahaa mid aad iyo aad wax tar badan dadka Soomaaliyeedna wax badan ku soo siyaadinaya maantana waa maalin jimco wanaagsan ayaan leeyahay insha Allah asbuuc soo socday iyo noloshiina iyo cimrigiina insha Allah Ilaahay ha inii barakeeyo dugtoonaadana oo ku dadaala inaan mataqaanaa
aqoontiina aad siyaadisaan, waxyaalaha isticmaalaysaan, waxyaalaha adeegsanaysaan inaad taqaaniin, tallaabo walbo aad qaadasaan inaad iska warqabtaan. waana waxa ugu muhiimsan maanta bulshada aad adiguna amni ku noqon kadhid, waxa weeye dadka kale ku nabadgelin kadhid, soo kala noqo qof wanaagsan, raac diintaada waxa ku amraso, tallaabo walbo aad qaadasid waxaad barbar dhigtaa oo ku miisaantaa diintaada. inta aadan miisaamina waxaad barataa diintaada, sababta qof walba intana badan waxaan marti uga nahay diinteenni ilaahay noo soo dejiyey ayaan sheekh marti uga nahay. kuma lihi sheekhda ka hor imaada mataqaanaa sheekha dhageysanaa, waxayna leeyahay diintiina waxa layna ka rabo idinka mataqaanaa naftiina iyo aakhiradiina iyo adduunkiinaba in anfacayso. qofku waxaa laga rabaa inuu yaqaano asagu oo uusan cid uga baahan. wixii kaloo mataqaanaa sheekhu uu kaaga cilmi badan yahay u raadso. mataqaanaa dee aqoonta waa sheekhdu waa meeshii, waa masterkii, waa sourcigii aan diinta ka helanay. ixtiraam iyo karaamo iyo sharaf baa la rabaa inaanu mataqaanaa sheekhdaas aan u muujino kol walba, si walba u cilmi badan tahay iyo si walba waxa weeye mataqaanaa sheekhaas uu aqoon yar yahay dadka waxaad u muujisaa ixtiraam. marka intaasaan kusoo gabagabeynaya. wassalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu. guys, stay safe insha allah.